dumarku waxay dumarka isu meher dumarka meheriyaan masaajidada tujiyaan waxaan ku yiri nin qora wuxuu qabaa 10 dumar ama dhowr iyo 10 dumar waxa maskax bilaadan keenin kara xaafadan waxaa degan qoysas ka mid ah wadaadada loo yaqaan takfiirka inkastoo aanay raalli ka ahayn haddana waa magaca loo garan og yahay magac gaar aad leedahay ma jirtaa magac gaar anaga dadku takfiirin baan oo yaqaana takfiirna waa gaalaysiye ilaahay waan xna islaamka xna gaalaysin kara in alladina kafaru ilaahay baa yiri ku alla rubay ku alla ku kufriye bilaadan xna ma gaalaysin kara xna ma islaamin kara wada ma walaha laakiin magac gaar oo idinku aad leedahay islaamiyana la yiraahdaa jamaacatul islaamiya warbixintani kama hadlayso aqoon ahaan inay saxan yihiin iyo in kale waxay si diiradda saaraysaa faquuqa ay kala kulmaan bulshada kale ee ay la nool yihiin dadka ka midka ah kooxdan sabab la xiriira waxyaabaha ay aaminsan yihiin booqasho kooban oo xaafadan ku nimid ayaan waxaan u koolgalay bal inaan wax ka ogaano dadka halkan ku nool qaabka ay u nool yihiin iyo waxyaabaha ay bulshada qaar ka sheegayaan inay yihiin kuwa sax ah oo jira iyo inay yihiin sheekooyin propaganda ah oo laga sameeyay waxaan ka aaminsanaa waan shakiyo waan warware qadan odawaa waxay ka mid tahay dadka la jaarka ah qoysaska xaafadan degan dhowr sano ka hor cabsi badan ayaa ka haysay iyada iyo qoyskeeda in xaafadan ay u soo guuraan markii aan soo degayna meesh intaan soo degay markii hore laga shakasiiyay dad waxa lagu yiri qolyahan baa meesha degan maxad ka soo doonta taana aqoon horeba ma lahayn waxaan ku urday waxba hadaan ku arag maxaa meeshuna waa hantida iyo meel kale aan guuro ma haysto dabeetana ilaahay baa iska wakiisho waan iska degay xilligaas saacada imkay qaarna ku dhaadaan guriga ma iska iibisana meel kale u guurtaan aagaasoo dhanba iyaga loo soo degi waayay dabeetana meesha aagii waxaan ogaaday inay dad qurba joogi leeyihiin aanay weli u soo diyaar garoobin arrimaha laga sheego qoysaska halkan ku nool inkastoo aanay in badan oo ka mid ahi waxba ka jirin sida aan ku ogaanay warbixinta haddana waxaa jira kuwa ay qirsan yihiin inay jiraan waxaa ka mid ah in hilibka lagu qala xaafadan iyo sariibadaha magaalada aanay iibsan isla markaasina aanay cunin waa dadka xujaaban islaamka waxbay ka iibsanayaan inta yare hilibka ah oo ay yiraahdeen anagu hilibka wixii lagu qabireynayaan sugayna ayuun baan ku aragnay wax dhibaato ah oo kale oo ay sameynayaan total banaan ma jiraan waxay yiraahdaan ariga dhulka inta ka qaadaan cirka dhulka dhexda ku gowracaan ariga way weysay dabada biyo kaga shubaan way u istijayeen waxaan bilaadan marna ka suurto xitaa aqligiisa oo qof aqli xitaa ku sheekayn karin waxaas ay yiraahdaan moogta waxaas waan maqlay neef bay qalanayaan oo neefka waa loo istijiinaya waxyaabo caynkaas oo fara badan oo gebigaaga adiga ku bedelaya markaad dusha ka joogto waxa la wixii been bay noqoto cadkana iyaga xoro iibsanaya halkay doonaan ka doonanaya nimca saleebaan oo ka mid ah qoysaska ka midka ah kooxdan ee xaafadda degan ayaan weydiinay sababta ay hilibka u iibsan waayeen anagu waxaan ogaanay gowraca waxaan ku yiri in wax kasta bareen karaan oo geelasha waxaan ku yiri la cadeynayaan dad diinta caay bareenayaan oo taariikh salaadka cidi sheegay oo kii diinta caay cidi sheegay oo kii taariikh salaadka cidi sheegay oo kii cibaadada qeyr leh qabriga kor fadhiya cidi sheegay intaasaan ogaanay masaajidkan oo ku dhex yaala xaafadda ay qoysaskani degan yihiin waxaa la xidhay 4 sano ka hor dawladda ayaa ilbaabada u laabtay masaajidka isagoo xidhan waan ugu yimi hadeerna waa goob xidhan oo xashiishku ka buuxo masaajidka waagi la xidhay maan joogin 2016 baa la xidhay baa leeyahay inta saka ahayd ma garanayo anigu waan ka maqnaa magaalada markaa laakiin isagoo saa xidhan anigu meesha soo degay taan soo degay waxaana lagu xidhay wuxuu baa leeyahay dadku dadin qalacan bay haystaan bood laga dhaadhicay dawladda sida lagu sheekay culimaana ka dambeysay warka saasaan maqlay anigu laakiin waraan cadeynaya hadda ma aha aan oranayo waxaasay ahaayeen saasay ahaayeen si faahfaahinay culimaa warkan ka dambeysay dawladda la hadashay askartina waa la xidhay dawladda way xidhay maraan wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda diinta ee gobolka Togdheer sababta loo xidhay masaajidkan waa uu ka gaabsaday inuu xog naga siiyo culimada horta way dhistay laakiin waxay la tahay qofkii soo galay ku tukaday cid ka baxmay oranay diinta Ilaahna ma qabta taas masaajidkan iga dambeeya ka sokow inuu ahaa meel lagu cibaadeysto waxa uu sidoo kale goob waxbarasho u ahaa daayarta ku nool xaafadan ee dhaleen culimada ka midka ah jamaacatul islaamiya ee xaafadan ku nool yaadi ku weyntiina yaadi ku weyn aniga adag weyn mashirbat dadka xaafadan degan ee la jaarka ah qoysaska ka midka ah kooxdan ma jiraan dhibaatooyin ay ku qabaan dhammaan fikradihii markii hore ay ka aaminsanayeen way isbedeleen kadib markii ay la dhaqmeen sida kale waa dad islaama oo dhaqan wanaagsan oo jaarnimo wacan annagu waxaan leenahay dadka wixii dhibaateeya inay meel kaga dhiceen baan u aragnaa inta dadka ugu badan aan u shaqeeyo ama aan raashinada u qaado ama aan meel geeyo iyaga ugu badnaa oo dad aan wada shaqeyno oo weeyaan xagga dhaqanka aad bay nooga fiican yihiin laakiin weli waxaa dhibaato ay ka jirtaa xaafadaha kale ee magaalada ee qoysaska kuwan la midka ah ay degan yihiin kuwaasi oo bulshada ay la nool yihiin kala kulma dacaayada iyo dhagaxmo aanay raalli ka ahayn meel walba degan yihiin ilaa Salmaan kulul ilaa Arab Saqiir ilaa meel walba yaalaan Axmed Jamaali
Home Cable TV, Burco.